ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله ما دارين كيو قصيه ما توحكوا الله أنا كلامك ورين الحمد لله إنه سوستقل يمان إنه سوني معنا مالشان سيا في عن الله سو ياسمين هجامته معامل قبل خفافا iyo xaafadaha kala duwan iyo xubnaha rag iyo dumar bale dhalinyarada culimada iyo ururka haweenka iyo naftooda horiyaasha inaan isu dhimaano inaynu waxaynu aragno wax muhiim wadaagno waxyaalaha ugu muhiimsan ee wadaagna maanta waxaa ka mid inaan mawjado kala duwan ka aragnay xubnaheena iyo mas-uuliyiinteena oo cabiraya hadday tahay suugaan iyo hadday eraya tahayba cabiraya isku wax oo doonaya hal hadaf ku buuxa doonayana inay ka midho dhaliyaan maanta aniyo admiraal maxamed cumar gudoomiyaheena ruuxiga iyo xubno kale oo iyo mas-uuliyiin meesha fadhiya waxaan ka qayb galnay seminaaro iyo aanu tabaha iyo xeeladaha dadkeena iyo duruufaha danaheena taniya saaka sideedii hadda markaan idiin waxaasa ku jira dagaal maskaxeed maxaa yeelay dagaalka hadda sida la sheegay waa dagaal siyaasi dagaalka qoriga egashta waa naqaan ka xabada guriga ka wax badan dadkan uu yaqaan laakiin taniya waagaa hore guushu wayna seegtay marka sababta guushu inoo seegtay waxaa weeye waa lagu kala duwanaan karaa laakiin mas-uuliyiinta ururka iyo xubnaha iyo hawlwadaanka waxaa saaran xil ah inaan intaan taariikhda dib u milicsano oo taariikhda islaamka gaar ahaan dib u milicsano oo qur-aanka dib u milicsano inaynu baadhno oo nidhaahno sideeba dad biniaadam dadaal iyo muslinay ay guusha ku gaadhaan maxay yihiin arrimaha seejiya guusha arrimaha inaynu maskaxda ku hayno arrimihii abaabulka waxaa ka hadlay admiraalka si fiican uga hadlay arrimihii gubaabada iyo kicinta dareenka kulligan waa wada qeyraysanna marka arrimihii inoo haray waxaa weeye halgankeennii hadda iyo marxaladda xagee maraya maxaa inoo qorshaysan doorashadu maxay tahay waayaha doorashada iyo waxaad ma maqlaysaan hadda xagee maraya iyo maxaa inoo qorsheen mustaqbal arrimahaasa u baahan inaynu isku beej ka akhrino inaynu isku si u fahmno walaalayaal inaan xisbiga ONLF wuxuu ka wareegay jabaadda wuxuu noqday xisbi laakiin mabaadi'diisii iyo ahdaaftiisii iyo himiladiisii guud waxba iskama bedel habraacii halganka ayaa wax iska bedel habraaca halganka waxaa weeye hadduu ahaa halgan xoogiisu ahaa hub iyo dagaal iyo cadow aan lahayn waan iska celinayna ay kawamaalayeenna halgan siyaasi ah iyo mid diblomaasi ah oo labadooda iyo arrimahaas kolka la isku baxo ay dhaleen guul oon halkan ka idhi mar hore ururka ONLF qiyaadadiisu waxay la hardamayeen niman TPLF la yidhaahdo oo kibray taageer baa la yidhaha afka islaamka taageer dad kibray oo yidhi anigu أنا يا جرب أنا خير منه يا شيطاني وحان هذا هلكن عن كيدي حتى لك علن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كوا وانس قبلنا دال خناعر بنس لقلي إذا كوا حلقة بحنفك حبسي دالك كفسي دلك وحي بالحوارتين أنا ولا على حوارنا كي فكر كها يو حاجة أنا وكنا يدلون مرة وحان هذا وكعلن تقريجي أنا سني وان كاني والحمد لله رب العالمين هذه ويدين كرتان وحاجة ويدين كرتان سوى واتكان وحاولاتكان الدولة وتوجه اللي غني وقومية يرى حاجة تنال حاجة ما تجوا باقي هذا أبواب شيء كل هذا لي لا ما شاء الله ما هذا إنسان طيب ما هذا إنسان يا كريموشة الحمد لله إلهي مكان وأذكر تنسمع إنه لدلال كبر لنا وعلى هذا الإرادة يوضع سوق عين مستقبل كله وأنا أضيال بحنا كوا وكال كله حتى وإنكم
idinka kaalintanada annagu waxaa weeye waxaan khibrad leenahay iyo waxaanu wax ognahay xogaal nahay inaanan la bakaylin oonan godka la gelin idiin dhibnooda ku wareejo waa sababaha ma inaan cilmi badan kororsanayn laakiin sabahan u dhex fadhinay maanta seminaarada berina u fadhiyeen berina kuwa idin bilaabanaya idinka dhallinyarada iyo ururada ku kala Cumar baa idin sheegi doona iyo gudoomiyaha gobolka maxaan culays u saaraynaa tababarka waxaan u saaraynaa waynu naqiinay cadow dagaal iyo waxa waan naqiin laakiin siyaasad bayna dhaqoon ama haddaan naqiinay yar baa yareetay marka hadda waxaan rabnaa aqoonta siyaasadda iyo sida loo halgam siyaasi oo nabad ku salaysan sida loo halgamaa inaan baranno aaliyaadkiisii hababkiisii qaababkiisii oo dabinnada iyo shirqoollada ku gadaaman marxaladahaas halganka nabadda inaynu baranno isku beej akhrino idinka dhammaantiin iyo can ariiqi aaliyaadka waxaan ka leeyahay fariintaan gudbinayna waxaa weeye waa inaan barannaa kood dastuurka etoobiyana barano maxaa xuquuqoo ku qoran see u qoray dastuurka etoobiya haddaan guud ahaan idiin sheego waa mid qurux badan wey markarta markay markuu qoran yahay wey laakiin marka fulinta waxba kama jiraan bal dastuurka deegaanka inaan aragno wey ka deegaanka loo dejiyey gaar ahaan waliba divisionka lagu sameeyey dib eegid 2005 inaan naqaano wey dastuurku qaybihiisa ugu horreeya dastuurka adduunka oo dhan qaybta hore waxay sheegtaa xuquuqda muwaadinka dalkaas marka xuquuqda horta bal dastuurka hore inaan naqaano kuwa kale ee soo socda waa meesheeda ya aduu waxaad ku darsaadi ku taal halgan iyo baraarug waa kala laba waan ku celceliyaa baraarug waxaa weeye dad un wax doonayo gobonnimo iska jecelo jidboono indhacda markuu gobiyo talaaye waa wax fiican markay barwadaas barwo ay sheegeen magacageed saacada markay hadasho kale u bogayo oo dhahay leebkii qaasada yaasi marka waxaad fiiri qayb waa qaybta waa baraarugaas waa dad dareen leh oo qalalaabsan leh laakiin halgan aad u dhegeysa halgan waa waxqabad ka ambaqaadaya barnaamijyo la dejiyey oo maangal ah oo si fiican looga baaraan degi mid walba si fiican may garteen marka aad baan uga helay ereyadii sucaado ay hoosta ka xaqiday tiri waa inay xorowdo meel ahoo ereyo qurqurux badan ya qalbigeedu waxay dhihi jireen soomaalidii waagay ilaahay ka soo hooyo horarka iyo waraaba waa garta maasha allah marka halgankaa jabuuti xoreynta waa ku wada jirna aniga saa aniga maxamed waa wada xoreyn kow soomaalidu markay leedahay ka soo hooyo horarka iyo waraabaha maydan dhaalan idinka qaarkiin badankii yo mid baa gobyaha odhay qalbi lulid waa muxuu yidhi qalbi lulid waa xeeladahay nuulugoyeen kaalaya ka soo hooyo xora ku qaban maayaan isku soo duuduubo baraarugii halkan inaan ka gudubna wey 30 sano aan halgamaynay waa inay inaga erayada quruxda laga maari maayo ee qalbiga dhaqaajinay laakiin qalbiga iyo caqligu inay wada shaqeeyaan dareen keliya lama rabo dareen iyo waxqabad abaa la rabo hadalkan ka hadlay maanta waxaa weeye kow laba qodob baa i hadhay abaabulka gudoomiyaha ka hadlay laba qodob baan rabaa inaan yara dul joogsado mid waxaa weeye doorashada xaggee maraysa waa kelimad saaca waa eray waa hadallada maanta fadhi kudariga xaggee iyo doorashadii ma dhacaysa waa hadalka sidaan ka hadalla wey kaas marka aan dul istaaga waxaan uga hadlaynaa waxaa weeye koob ururku ama xisbigu wuxuu go'aansaday inuu doorashada ka qayb galo xisbigu wuxuu go'aansaday inuu doorashada ka qayb galo doorashada qaybgalkeeda waxaan u aragnay oo ururku u arkay hogaaminta ururka u aragtay inay soo dhaweynaysa ay tahay marxalad soo dhaweynaysa oo loogu sii dhawaanayo hadafkii guud oo ururku weligiibu halgamay saasaa loo arkay okay waa mala awaal iyo xisaabta dhaba oo ku yimid go'aankaas marka doorashada waxaa loo dejiya nidaam iyo xeerar iyo shuruuc si ay u noqoto kolka la qoray laleeyahay waa doorasho xor ah koow oo dadku way uga furan tahay labo waxay afka gaalada ku fiicanta waxaa la yidhahdaa free
fair and inclusive يعني doorasho xor ah oo muqoonin iyo xaq lahayn kow fair oo cadaalad ku dhisan saddex mid ka u dambeeya dadka u wada furan dadka u furan dad gaar ah aan lahayn yaa shuruudahaas iyo xeerarka waynu fahmnay maanta guddi baa loo sameeyay ururka doorashada kas qaybo kala duwan leh hawshaan isha ku haya doorashadu waa marxalad ka mid ah halganka ee maaha iyada halganka hadalka hoosta ka xarin doorashadu keligeed maaha waxaan doonayno nin baa si fiican u sheegay wuxuu ahaa xukun ma doonayno waxaa ma doonayno waa ka tash ma doonayno mid buu kuma gaari bay soo ma gaari bay gaari ma sha Allah oo yaraan hada anayada waa maskaxda waa leeyahay kow doorashadu waa marxalad ee halgankii maaha halganku uu ka gudoon yahay doorashada barnaamijka aan gudoonsanay inaan ka qayb galo heerar buu soo maray heerka koowaad wuxuu ahaa inaan tagno degmo walba iyo tuulo walba oon soo ogaano dareenka shacabkeena la tashano culimada waxgaradka xuquuqaasha wanaagsan halgamayaasha ku nool meelaha shacabka qaybihiisa kala duwan aan la tashano maxaan sameynaa doorashada ka qayb galaa yaa ku habboon yaa wax habka waxaan ku soo helay hal heer buu waan ku guuleysanay alxamdulillah waxaan soo gaarnay inaan soo xullo murashaxiinta arrin sahlan ma gobolkan rafaadkeeda ka qabsaday xawaalooda xagga degmo hebel qatabtood garan in marka 11 gobol si baraleena si siman oo gacmo siman aan hawsha u hirgelino hawl sahlan ma ahayn hawsha waan ku guuleysanay alxamdulillah heer baa heerkii labaad baa la gaadhay heerkii in la diiwaan geliyo codbixintii dadka heerkaasaan u baxnay haddana kolkii codbixintii iyo warqadii la sugaya yimaadeen waxaa ka soo baxay khaladaad badan waad garteen soo maa khaladaad badan oo muujinaya ama midaaraya inayna doorashadu ahayn mid faa'iido leh oo saasay midaaraya ma aanan markaa sidaa la leeyahay oo dadku nagu ducaydayaan maaman odhan intaan caroono dooyaysana meel cidna ka baxlay waxba dagaalka cusub ee siyaasiga lagu kalifaya inaan political game ciyaarta siyaasiga shuruudaheeda habnabada oo xujo iyo mantiq ku dhisan inaan muujino marag cadna gudbino oo nidhaahno waxaa jira annagu weli committed baan ku nahay yani weli inaan doorashada gala diyaar baan nahay laakiin waxaa noo muuqda ifafaale muujinaya inay doorasho fiican soo socon waxaan leenahay waxaa hala bedel waxa oon hadal ahayn marag sawir video waxaad wado waan gudbin dagaalkaas waxaa hay'ad baa jirta qaabilsan dowladda laga dhiso neeba la yidhaha afrika ama xar marka hay'adaas waan u gudbinay waxaan u sheegnay haddaan waxaa laga bedelo horta waan hakinay go-aan ahaan waxaan u hakinay kow labaan isku dar hakin aan leenahay ilaa wax la bedelo doorashadii annagu far baa loo tahay dacwadiina waan gudbin dacwadii way ka garaabeen qaarna mayna ka garaabin aad ma goradeen meelo badan oo isku nooca iyo qaarna ogolaadeen qaarna ayna ogolaan sababtii baan garan maanan garanayn تو كلا قرر هذا تو كلا دعوة كلا